baqadan wada hadalladaasi uu kula dardaarmay in ay ka wada hadlaan xaqiiqda dhabta ah isla markaana loo baahan yahay in wada hadalladani ay noqdaan qaar meedhala madaxweynaha oo arintani ka hadlaya waxa uu yiri maanta halkan isku keenay dhamaanteen ma hadda labaad waxa la madaxweynaha Djibouti iyo shacabka Djibouti iyo dalka Djibouti oo soddonkii sanadood ee Soomaali burbursanayd inta la daba joogay aqli waxtar iyo dareenka walaaltinimo soddonkaas sano tanaatiin bay ka mid tahay ilaahay ka jazaaysiin doona innaga shirkeena maanta qof wala af Soomaali ku hadlaaba meel kasta ha jooga shirkan lug buu ku leeyahay professor geelchire mid beer qodaya mid dooni saaran qof walba waa faalaynaya shirka wala soo eegaya waxa la naga rabaa wax dhibaatadii jirtay wax ka xallin kara inuu ka gaadho aragti way kala duwan yihiin laakiin halkan waxa la isugu yeedhay halkan loo yimid dad khilaafsan oo kala fog in ay gaaraan xal ay isku afartaan dad saaxiibo la isugu yeedhay dad kala fog baa la isugu yeedhay oo la doonayo dantuna ku khasbayso waqtiguna ku khasbayo inay si waaqici ah oo run ah u helaan xarakooda gaaraan taas ayna saaran qof waliba hadadaalo hadalkana runta haddii aan laga sheegin murug buu galaa run la isu sheego wixii la tabanaya si adag laga wada hadlo wixii la wada goostay ee lagu heshiiyana run laga dhigo hal rumeey taas baa la naga soo soconaa xagga yaga waxaan halkan lamid run wixii dhibaato aan u aragn aan sheegno wixii dan inoo wada ma hadanta Soomaaliya qoys maanta Soomaali maxaa u dana qodobka u dana ee ka fursan weynayna waan la nimid walaaladayna waxaan u sheegaynaa si walaaltinimo ah iyaguna waa soo kale waxaan diyaarnahay inaan dhageysano ra'yiga naga duwan kaayaga ka fog inaan dhageysano oo dulqaadkeeda yeelo oo rogrogdaan u nimid idinkana saayis lagban ka doonaynaa shalay arintu waxa ahayd madaxweynayaashii waa shiray oo hadlay oo dhageysanay mas'uuliyadii waan soo wareejin guddiga wasaaradda loo soo wareejiyay anoo tilmaantayda waan nidhi halka war hal la wada heshiiyo war wax la isla afkarto waa dhamayn maanta waxa la soo eegayaa guddida farsamo ee halkan ku hadhay inay keento technical war maxay noqdaa khasab ma in maanta wax walba la soo afkarta waxa weeyaan talaabooyin jiraan maanta la isla afkaran kara maxaa inoo halkee ugu fudud ku heshiin kara maxaa ugu dhawan ku wada heshiin karayna maxaa adag أنا وحلي رضا معي إلى حالي ما ناكل الصيحة محان طول قاضنا هل كانوا كيقولنا محان contribution محان كتر شركة إنه بوليسو أولو بوليسنو آد بانو صوتين آد بانو هذا وحنوضنا ورب شركة يا أمد إن سوي سام حال بوليسن كنا أنت يمكن لسولي ولا يشين كنا intee baa adag maxaa la qaad kara marka idinkana waxa la deena labadu baa tiimay tahay xil baad saaran maanta waxa u muddo dhageysanayso halkan idinkana sugan halkan wada fadhina isaa iyo ilaahay idinkii tala wanaagsan tala sooban halkan waa meel iska barakaysan oo in badan baa guul ugu gaaraa jaano intaas naga dardaarana ana mahadsantii إبراهيم مولى إسماعيل شبكة ورقة إليس نيوز مقالة هرقيزة